madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Suudaan uu ka saari doono liiska dawladaha taageera argagixisada haddii ay bixiso Suudaan magdhow dhan $335 milyan oo dollar. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Abdallah Hamdok oo ka jawaabayay ayaa yiri ama sheegay in dhaqaalahaasi la wareejiyay laakiin aysan jirin wax cadayn ah oo muujinaya in Mareykanku oo si degdega u helay dhaqaalahaasi. Warbixintaasi waxa isha soo mariyay oo haatan stuudiyaha ila jooga soo saaraha barnaamijka Ciise Xaaji Cabdulle Ciise. xasan marka ugu horeyso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu waxa uu ku sheegay waa war wanaagsan dawladda cusub ee Suudaan oo horumar weyn sameynayso waxayna ogolaato yiri inay $335 milyan oo dollar ay siiso dhibanayaasha argagixisada Mareykanka iyo qoysaskooda. marka la iishubo waxaan ka saari doonaa yiri Suudaan liiska dawladaha taageera argagixisada ugu dambeyntina waa cadaaladda dadka Mareykanka ah iyo tallaabo weyn oo loo qaado Suudaan ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka. marka waxa uu awood u leeyahay inuu Suudaan ka saaro liiska wadamada taageera argagixisada. aqalka wakiiladuna waxa uu haystaa 45 cisho uu wax kaga yiraahdo arintan ama tallaabadan. waa tahay Ciise markii hore Suudaan sababta loo geliyay liiskan madow ama dalalka taageera ururada argagixisada maxay ahayd? xasan Suudaan waxay ku jirtay liiskan tan iyo sanadkii 1993 markii hogaamiyaha al-Qaacidada Osama bin Laden uu halkaasi ku noolaa isagoo marti u ah dawladda Suudaan. waa hogaamiyihii geeriyooday. magdhowgu wuxuu la xiriiraa yiri qaraxii al-Qaacida ee safaaradaha Mareykanka ee Afrika sanadkii 1998 weeraradii ka dhacay dalalka Tanzania iyo Kenya waxaana ku dhintay in ka badan 220 qof. lacagta magdhowga ahna waa in la siiyaa dhibanayaasha argagixisada Mareykanka iyo qoysaska sida madaxweyne Trump uu sheegay. marka xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Suudaan ayaa soo fiicnaanay xasano tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Umar al-Bashir kadib mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay dalkaasi sanadkii hore. Mr Bashirna wuxuu xukumayay wadanka Suudaan ee colaaduhu ragaadiyeen muddo 30 sano ah. marka ka saarista Suudaan liiskan waxay noqon doontaa war aad looga soo dhaweeyay dalkaasi halkaas oo cuntada shidaalka iyo daawada ay qaali yihiin oo ay gabaabsi yihiin tan iyo markii Umar al-Bashir xilka laga qaaday iyo ka horaba oo dibadbaxyadu ay sii jireen. waa tahay Ciise marka dawladda Suudaan hadda sidee uga jawaabtay ama uga falcelisay hadalkan madaxweyne Trump ka soo yeeray? ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Abdallah Hamdok wuxuu sheegay in Suudaan ay rajeynayso wargelinta rasmiga ee ka imaanayso mas'uuliyiinta Mareykanka 7 bishii Agoosto sanadkii 1998 gawaari ay saaranyihiin walxaa qarxa ayaa isku qarxiyay banaanka safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam oo 200 qof ka badan ay ku dhinteen. marka waxir kadib markii Trump qoraal uu ku soo bandhigay Twitterkiisa ayaa ra'iisul wasaaraha Suudaan Hamdok waxa uu ku dhawaaqay in lacagta hore loo wareejiyay taasoo uu ku sheegay war laga sii daayay telefishinka dawladda. marka waxa uu sheegay in tallaabadan ay calaamad u ahayd shuruudii ugu dambeysay ee laga sugayay Suudaan si looga saaro liiska madow. marka xasan dabcan 4 dal oo kale ayaa ku jiro liiskan Suudaan oo kaliya kuma jirto. waa tahay waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Ciise Xaaji Cabdulle oo nala socodsiinayay wararkaasi ku saabsan in madaxweyne Trump uu sheegay in liiska dalalka taageera argagixisada uu ka saarayo wadanka Suudaan.